صاحب يال لبضة كوني لبعتني اللحظة كلي وحكري من دور بلود ميت كم بده فرصة أقوى وين أو أونلاين بيزنس كلا عقل لوجش مي وحوي وكونتنت كريشن إنا بلود يوتيوب إنا بلود فيسبوك إنا بلود إنستغرام إنا بلود تيك توك وليدا هذا واحد صباح صاحب يال أي تولز هاس أو كعاونس إن أسفد ونقطة قف إنفلونسر تعمل لك فائدة أونلاين بيزنس صاحب يال بيزنس كهذا أنا عليه ماش أنا كبل علي وكونتنت كريشن هذا واحد نكلا على صاحب الحفيز كقبل جمكاني يسوي عليه واحد كلنا صاحب أيام حفيز إن كبدن صاحب البيزنس هذا waxa ka shaqeeyo toddoba qof ka badan baa ka shaqeeysa waxa soo dhan waxa aas ama hooyo oo saaxiib yaal maalin inta soo qaatay mobilkayga muuqaal aan duubay aan iri waxa ku soo biiray content creation ka waxa bilaabay YouTube channel waxaan ka hadlay gaar ahaan online business go'aanka saaxiib yaal aan maalinka qaatay wax aaminsanahay inuu ahaa go'aan aad u saxsan ilaahayna saaxiib yaal iwaafajiyay maanta aan ahay qof xor ah business iskale shaqo xamaaliye aan aadin qurbaha ku nool dunida waliba meeshuu rabo u safri karo kana shaqeysan karo bishi hadda la soo dhaafay saaxiib waxa joognay Nairobi kali waxa u baahnaa computer internet iyo aniga oo markaas waqti hayo in aan businesskay aan ka shaqeysto wax ii saamaxay waxa waa content creation marka biggest opportunity online business lacag lagu sameeyay saaxiibayaal waxa kamid ah content creation muuqaalka marka waxaan ugu barayaa qaabka oo bilaabay content creation sida uga faa'iideysan lahayd iyo fursadda waliba 2026 ka soo bixi doonto oo adiga laga rabo inaad faa'iideysto xaaji wali biilasha soo dirin oo come on Thank you Vobi. haddii aad ku isticmaasho Wi-Fi lambar UK ah Vobi wuxuu ku sahlayaa inaad si degdeg ah ammaan ah oo sahlan aad lacag u dirto qoysaskaaga Afrika ma jiro culays mana jiro waqti lumis Vobi si toos ah kaarkaaga UK lacag u dirso the good news saaxiib waxa weeye maanta uma baahnid kaamirad qaali in ay ibsid uma baahnid microphone iyo geeris qaali saaxiib in ay isticmaashid kaliya maanta waxa u baahan tahay taleefankaaga waa ogahay taleefan fiican baa haystaa iPhone fiican baa haystaa ama Samsung fiican baa haystaa ama taleefan kale oo kaamiradiisa quality leh baa haystaa kaliya waxa u baahan tahay taleefankaaga iyo sidoo kale saaxiib the right tools qalab yar oo ka caawiya arintaas iyo xirfada u baahan tahay muuqaalkan saaxiib waxa rabo inaan kugula shargareeyo xirfad hadii aan ku socdo iskuulkeena waxaan ku soo kordhinay saaxiibayaal koorsadan ay u jeedaan oo lagu baranayo content creation ka iyo AI koorsadan saaxiibayaal waxa bixin doona mid kamid ah macallimiinta iskuulka arintana waxa way qabiir ku ah waxa ku baran doontaa how to plan ideas ba ku baran doontaa how to shoot ba ku baran doontaa muuqaalada si loo shoot karayo waliba si xirfaysan ba ku baran doontaa waxa ku baran doontaa skillska CapCut iyo Canva oo muhiim u tahay CapCut in muuqaalada lagu edit karayo soo kala Canva aad ku sameeyay thumbnailka iyo wixii mataqaanaa designs oo baahan tahay skillka inaad ku baratay iyo sida audience-kaaga aad u gorogolanayo aad customers badan iyo mataqaan subscribe step by step ba ku barata koorsan saaxiibayaal waxa ku fiican tahay dadka beginner-ka ah sidoo kale raba in muuqaaladooda income ahaan u bedelaan ka faa'iideysta waxa ku jirta website-ka sidoo kale saaxiib website-ka domain waa kana galabshi.com in ku dhow 40 course waa ku jiro xirfadaha crypto ku jiro forex ba ku jirto dropshipping ku jiro video editing or software ba ka hayna graphic design sidoo kale waxa ka hayna saaxiibayaal coding ilaa 8 course oo coding baa laga hayaa oo HTML saaxiib ay ka bilaabanayso skill kama maqana barashada computerka IT-ga hal boqol saaxiib yaal iskuulkeena saaxiib yaal waxa dhahan content is the secret ba dhahan sirta waa content saaxiib yaal waxa soo baxay bariga hore shaqooyinka shirkadaha waxay aad u raadin jireen qof shirkada maamulo kale iyo HRM ko kale manager iyo director shaqooyinkaas bariga hore aad lagu tijin jiray laakiin hadda saaxiib yaal business kasta waliba ku waaweyn department dhan waxa sameeyay loo yaqaan video production ka waliba uu ka dhaqaale badan yahay shaqooyinka hadda aan idin sheegay waayo qofku waxa raamaanta soo gurigiisa joogo taleefankiisa ama TV-giisa ka daawan in service-kaagi in business-kaagi in content-kaagi loo geeyo wax ka iibsado ama quality waxa weeye ama muuqaalada daawada halkaas dhaqaale ay ka sameeyay marka waa dareemi ka marka shaqooyinka awal loo tirtami jiray maanta waxa lagu soo kordhiyay video production the good thing waxa weeye maanta saaxiibayaal kaliya waxa u baahan tahay mobile-kaaga oo ina maanta shirkad u shaqeysid uma baahnid kaliya haddaad mobile heli kadib mic yar aad heli kartid all you need ina muuqaal yar sameeysid social media soo gelisid bariga hore saaxiibayaal wali waxa marka aniga bilaabay late 2020 ba bilaabay YouTube-ka saaxiibayaal dadka muuqaalada la daawan jiray la xiiseyn jiray ama YouTube-ka uu support gareyn jiray waxa ahayd dadka subscribers ka badan haysto laakiin hadda sidii maahan saaxiiba since oo TikTok soo baxay ba algorithm-yaalkii Facebook iyo YouTube wax badan bay ka bedelay oo saaxiibayaal maanta waxa dhacdo qof dhowr boqol oo subscribe haysta in muuqaaladiisa ay qarxaan YouTube-ka uu bashkaray kaliya
kaliya waxay fiirin mataqaana quality-ga muuqaalkiisa codkiisa iyo dadka hadalkiisa dadka daawanaya markay muuqaalka ku dhuftaan ee ka helaan kadibna uu bashkaray dad badan oo subscribers badan haysta laga yaaba muuqaaladooda inaan la daawan arinta TikTok baa keenay soo maan saaxiib 2026 baa la galay waxaan kugula talinayaa in aad soo gasho content creation ka sidoo kale waa ka muuqan kara ama qayb waxa jira mataqaana faceless baa jirto oo la dhaho oo adoon lagu arag xataa muuqaalo sameyn kara maxaa maanta saaxiib yaal sameyn kartaa maanta waxa ka hadli kartaa saaxiib yaal YouTube ka niche waa bilaaray marka hore isku hel inaa niche soo yeeshid wax un aad ka hadashid isku hadda dhalinyarada wariyaash u badan dii afar siyaasadda ka hadla waa kuwa ugu dhaqaalaha badan YouTube channel-ka actually Kenya jooga la siyar baan la kulmay saaxiibkay wariyaa YouTube si lacag ka soo gasho lacag waale aad malaysa kadib baa ka soo gasho because maalinka wuxuu soo geliyaa in ka badan 4 muuqaal qof 4 muuqaal maalinka soo gelinayo waa dareemi kartaa lacagta okay lacag waale saaxiib yaal bishi ka sameeyaan dhowr iyo $10,000 ku dhow bishi YouTube clip laga xisaabtamo marka adeeg ugu xiran tahay ma sidoo kale waxa noqon mataqaana part-time YouTuber oo bishi dhowr muuqaal 8 ilaa 10 baa soo gelinaysa ilaa 6 mise waxa weeye waxa noqonaysa qof full time oo sodonka bari muuqaal soo gasho mise qof overtime shaqeeyo sodonkii bari soo gelinayo content 6 muuqaal ama ka badan 70 muuqaal soo gelinayo kuwaas way by the way kuwa lacagta u badan sameeyay marka ay saaxiib maanta waxa ku kala tan xitaa hadii arday tahay jaamacad aad hada shalay YouTube mar aan qadeynay break markaan qadayo kala xafiiskayga markaan qaybta qadato waxa jecelahay in aan YouTube ka daawado dhalinyarada waxyaalaha entertainment-ga waxaan ahay dadka markay wax cunayaan jecel mataqaana in dhalinyarada Soomaaliyeed daawadaan ama YouTube wax un interesting ka daawadaan I think inuu xamar joogo mareynay iskuulkiisu aad yahay dugsi hoose dhex u dhigtaa YouTube bilaabay wuxuu ka sheekeynayay soo kale maalinka hore iskuulka aan aad runtii aad baa uga helay waana daawada marka waxaan ka wada hadii xataa arday tahay arday jaamacad aad tahay yes YouTube ka bilaab ka hadii aad shaqeynayso YouTube bilaab ka kaliya marka jaamacad ka soo baxda ama iskuul shaqada ka timaad kaliya ka dambayso YouTube saaxiib waa side hustle weeye lacagta xaysiiska xitaa hadii ilgu fur bishi 200 dugsiyo kale 300 ka badan markuu bilow ku yahay hadii aad qof caan noqotido ku qarxana waxa awooda inaad business ka bilowdo wax ku dhaxaybiso online waana goolka ugu dambeeyo laga rabo qofka inuu sameeyo ama waxa dhici karta mataqaana sponsors inay heshid oo xaysiimo kala shirkada platformka ay ku xayistaa marka xaysiin hadii aad lacag ka YouTube Google Ads lacag uu ku siiyo lazim mataqaana bishi 200 oo ku siiyo 300 sponsors ay mataqaana shirkada ay ku xayistaan ayagana $100 $400 $500 waxa laga qaadaa bishi lacag ku siiyaan iyo sidoo kale your own very business kaaga hadii aad bilowdid oo adigana mataqaana online waxa ku iibsay wuxuu roo ha noqdo dhar ha noqdo digital products ha noqdaan service aad bixinaysa marka ha noqdo soo kale design baa baratay ama video editing baa baratay ama mentor baa tahay ama coach baa tahay waxa soo dhan saddexda income ka sheekay hadda aad hayso hadii ku soo galaan sanadka 26ka dhamaadkiisa ee lacagaha soo dhan ee ku bilow hadii qurbaha aad joogtid waliba dhalinyarada jaamacadaha jiro kale Asia kale Africa kale yeeso ayna fursado badan baa haysa below YouTube channel-ka wadamo qurux badan qaybta inaad joogtaan ma laga yaaba vlogging hadaad below dalxiis hadaad online ka sheekay hadaad siyaasadda ka sheekay hadaad waxa ka sheekaysaa mataqaana xirfada ama skill-ka aad ku fiicanta storytelling noqo ama documentary noqo ama filming iyo waxa below ideas meesha ku soo gudbi ama reaction bixi kaliya waxaan kala dadaamayaa in aad positive aad u isticmaashid waxa weeye mustaqbalkaaga oo kugu tooso social media saaxiib hadaan waa mid laba afle hada dhanka xumaanta ka aadidna waa laga yaabaa inay views badan heshid laakiin sumcad badan baa laga gadaahayeen waa ka shalaysa laakiin hada laga yaabaa dhanka saxan aad inuu views ka garaado laakiin dad sumcad iyo sharaf iyo karaama inaa ka hesho adigana dadka wax ku soo kordhisid adigana mataqaana ay rataan waxa weeye aad faa'iido ka hesho marka iyo saaxiib yal 2026 baa la galayaa isku day inaa bilowdo content creation waa iga talo dunida saaxiib maanta waxa lagu tamayaa branding yourself in adiga laftiga isoo geysid waxyaalaha dadka soo saar waxa kamid in adiga isoo geysid social media timaadid dadka isbartid I do this I do that dhahdid skill-kaas la skill-kaas aqaana tanaan baranaya tanaan ku shaqeeyaa waxa soo dhan marketing yourself weeye waxa ku fududaanaysa inaad network badan heshid waxa ku fududaanaysa inaad shaqooyin freelance aad heshid waxa ku fududaanaysa event shirooyin in lagaaga yeero mataqaana skill-kaaga lagu xaway ixtiraamo waxa ku fududaanaysa adiga business aad leedahay inaad sameyso runtii dhaqaale badan ka sameyso goolkan waxa weeye shaqooyinka 9 to 5 ka inaad ka fariistid oo adiga markaa noqotay full entrepreneur ilaa bisha $1,000 ku soo gasho ilaa bisha $500 ku soo gasho hada full entrepreneur noqotay adoona shaqo aadin shaqada haystid talxiisayo baashaalayo at the same time dhaqaale sameynayo waa goolka ugu dambeeya digital nomad baa la dhahaa alaabtaas waa mid kamid ah waxyaalaha aan ku hamin jiray alxamdulillah hadana iyo ilaahay fududeeyay qayb kamid ah marka adigana taas aan ku rajeynaya aad baan saxba in salaamiya ciao ciao